kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartaana daawanaysa ay ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo uu marti noogu yahay wasiiru dowlaha ganacsiga ee dowladda Soomaaliya Daahir Cabdilaahi oo Dr. Go loo yaqaano Dr. Go marka ugu horeysa ku soo dhawo Saab TV aad iyo aad u mahadsantahay waxaan jeclahay bal inaad warbixin naga siiso maadaama aad tahay wasiiru dowlihii ganacsiga siyaasadda ganacsiga ee dowladda Soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو ما سنتهي هدي أن سكوان أو رهضة وزارة الجناعسية يورشدها حكومته وحي ودا سياسة الجناعسية صار الله صعد وحاجرت جناعسية مركل قوانا وإن شروطه وليه هي بوليسي يجرو هذا وحان ودنا شركة كمبانية ذا أيام ودنا وحان محل هذا عن باس جريني أما بلا باس جري شرعي محل هذا investment بورك شرعي دهين maalgashiga ayaan shisheeye waa la baas gareeyay guddi baa jira oo guddiga dhaqaalaha la yiraahdo oo ku saabsan wasaaradaha dhan ay ku saabsan oo boor gooni ah ayuu leeyahay kii waa socda maxaa la yiraahdaa registrationka laftirkiisa businesskiisa socda hadda oo maxaa la yiraahdaa inaan registrayno businesskii inta badnaa saa la socota Soomaaliya system waxaa ka jiro oo macna system horaa jiro system baan ka guureynaa waxaan u guureynaa system kale maadaama adduunyada system kale hadda ay ku dhaqanto oo qarniga 21 aan ku jirno system kiisi la soo waafajin lahaa waxa kamid ah waxaan sameeynaa maxaa la yiraahdaa aan hadda ku jirnaa oo aan hawsheeda aan ku jirnaa in systemka registrationka laftirkiisa uu noqdo system online ah oo qofku ganacsatada ah inuu online ahaan uu ku registrado soo gurigiisa joogo in waxyaalaha shuruudaha looga baahnaa iyo dokumentiyada uu ka rabay oo ganacsiga uu ka rabay ama shatiyada iyo wixii ku saabsanaa inuu online ku heli karo waa wadnaa taas waxaan kaloo wadnaa in wax la yiraahdo one stop shop oo ah xarun gooni ah oo loogu talagalay qofka ganacsadaha u dhow oo hal shay wuxuu dhan meesha lagu aruuriyo marka hadii shatiga uu noqon lahaa ganacsiga hadii ay noqon lahayd shatiga tayada dhowrka laftarkiisa uu noqon lahaa hadii ay noqon lahayd gobolka Banaadir oo maxaa dokumentiyada ay noqon lahayn hadii ay noqon lahayd wasaaradda caafimaadka hadii ay qalabkii caafimaadka ay keenayaan ay noqon lahayd wuxuu dhan isku meel oo meel laga helo ayaan rabnaa inaan ka sameeyno one stop shopkaas waa socda oo hawshiis waa socota waxa kale oo socda sharci kale oo ah sharcina aan ku dhihinay guddigii waxa la dhisay oo ay tahay dhowrka qaranka Soomaaliya la dhisay maxaa la yiraahdaa oo ay yiraahdaan Somali Bureau of Standard yaa la dhisay oo tayado maxaa la yiraahdaa guud ahaan tayada uu fiirinayo quality controlku wuxuu hoos yimaadaa guddigan iyo hoos yimaada guddigu waa guddi oo maxaa la yiraahdaa oo wixii quality control ah hoos yimaadaan wuxuu regulate gareeyaa ama shahaado siiya ganacsiga dhoofayo iyo ganacsiga soo dagay labadaba hay'adii weynayd ay hubin lahayd way sharcigii wixii wuxuu yaala golaha wasiirada wuxuu yaala guddiga waa la dhisay laakiin sharcigii ba wuxuu yaala maxaa la yiraahdaa golaha wasiirada wuxuu yaala mar dhow waxaan rajaynaynaa inuu kaasna naga dhamaado maxaa la yiraahdaa waxaan kaloo wadnaa in maxaa la yiraahdaa haldan ka dhaxgal wasiir halkaas ka muuqataa in halka guddiga ka horeysaysan loo baahnaa in sharciga loo ma sharciga in la helo waa ahayd laakiin duruuf jirta iyo ganacsatada siday ugu heelan yihiin in hay'adan la dhiso oo hay'adan la boobsi la dhiso ayaa keentay in horta la hormariyo guddiga laakiin sharciga guddiga waa jooga laakiin waa uu sharciga hadda la wadada guddiga wasaaradda keenta oo maxaa la yiraahdaa guddi board ah way wasaaraddu ay xaq u leedahay inay magacawdo kadibna wuxuu yeelan doonaa faracyo badan ayuu yeelan doonaa marka sharcigaas kaliya ayaan hadda u xirnay inuu baarlamaanka baas gareeyo magacyadii laftirkooda guddiga waa loo geeyay baarlamaanka marka mar dhow waxaan rajaynaynaa inuu in baarlamaanka aan dhihin golaha wasiirada afwan golaha wasiirada inuu mar dhow baas gareeyo haddii guddigii ganacsiga aad idinku wasaarad ahaan ama xukuumad ahaan nominate garaysaan ama idinku magacowdaan miyaanay ka qurux badnayn in guddi ama board isku dhaf ah oo private sectorka ganacsatada lafteedu ay xubno ku leeyihiin in la sameyn lahaado markaa madax bannaan runtii horta guddigu waa guddi markii horena waddankeena Soomaaliya ma jirin guddi oo gooni ah oo la magacaabay maysan jirin wasaaradda ayaa mas'uul ka ahayd guddigan sababta loo yeelaa waxay tahay maadaama uu yahay guddigii quality control ko dhan uu mas'uul ka noqon lahaa hadda wasaaradda ganacsiga iyada mandate-keedii ah inay iyadu magacawdo kadibna guddigaas waxay marayaan procedure ay marayaan oo golaha wasiirada in laga ansixiyo kadibna waxay sameeyeen xarun ay sameeyeen waddanka inay xarun ka yeelan doonaan dekedaha iyo garoomada iyo wax dhan marka hadii la yiraahdo waa guddigii kaliya hadda waxa for example ka soo qaada liinta oo kale
markii la qaadayo wadamada loo qaadayo ama alaabta oo kale waxyaalihii Soomaaliya ka soo baxo markii la qaadayo waxay maraan ama Dubai maraan ama meelo kale ay maraan kuwaas quality control ku sameynay iyaga jeegranay certificate-ka kooda ay ku dhigsadaan iyaga ku dhigsada oo ay leeyihiin manaa waa certified ay ka bixiyaan marka maadaama waqti badan ay ku jireen ganacsatada in dhibaatooyinkaas ay ku jireen waxaan garanay in horta laga maarmaan ay tahay Somali Bureau of Standard in la dhiso oo maxaa la yiraahdaa oo wax badan ka tari doono ganacsiga dhoofay ee kan soo degay dhexdoodaba marka waa guddi wasaaraddu ay maxaa la yiraahdaa ay mandate-keedu uu yahay inay magacaado hase yeeshee hawlihiis manaa shuruucda ay ku qoran tahay waa u madax banaan yahay hawlihiis oo marka uu qabsanayo ganacsatadu sidee bay u arkeen ma waxay u arkeen in waxoodii lagu xukumayo ma waxay u arkeen in waxoodii sidii uu adduunka u geli lahaa loo hawl yaraynayo bal arrintan ganacsatada iyaga dawladda waxay leeyihiin ma la boobsiyo maxaa la yiraahdaa shuruucdiisa wixiisa han loo baas gareeyo oo guddigii hawshiisa wata sababtoo ah waxyaalo badan xayran oo guddigan macnaha fududayn lahay wax anaga hadda aan keenno waxa ka badan waxna loo wax anaga aan dhoofin waxa ka badan waxna loo keeno marka saas daraadeed waxay leeyihiin anaga wixii wadankeena ka soo baxa meeshaan ku dhoofin lahayn oo hay'adii mari lahayd hadaysan dhisnayn caqabado badan naga haysa marka ayaga hadda waxa waaye waxay aad horta runtii aad ay u soo dhaweeyeen marka hore haddana waxay ku tala jiraan in madaxdii qayb ka mid ah ay arkaan madaxdii ay la kulmaanba ay yiraahdaan maxaa loo fududeeyaa hawshaas marka mar dhown golaha wasiirada waa ka dhamaanaysa hadii la yiraahdo markaynu nidhaahno guddigaas oo kale imika weli wax shaqaa may bilaabin guddiga weli shaqa ma bilaabin ilaa ay sharcigaas iyo ilaa ay golaha wasiirada ay kusoo ansixinayaan un buu sugaya marka golaha wasiirada soo ansixiyaan hadde maxaa la yirahdaa hadii la yirahdo si dhaqsi ay u bilaabaan shaqadoodii waxaa hadiyo jeeraale aynu ognahay in ay duruufo badan oo dhaqaale jiraan oo xukuumad ahaanba haysta haddana markaad eegto cashuurta laga qaado dekedda magaalada muqdisho oo kale waxaa jira container aan idhaahdo kartoon ay ku jirto laga yaabo dhowr boqol oo kun oo dollar iyo kartoon ay ku jirto lacag ka yar 5,000 oo dollar oo cashuur isku mid laga qaado maxaa sababay waxaa sababay hadda wasaaradda maaliyaddu ama cashuuraha manaa dadka shaqo ku leh sharci hore loogu shaqeyn jiray saa ogta wadankan sharci uu lahaan jiray Soomaali sharcigu soo dhisnaa laakiin marxalado ku soo dhisnaa hadda adduunka waa isbedelay marxalad kale maray hadda reform ay ku wadaan in manaa revenue reform lagu sameeyo waxaad ogtahay in macnaha dawlad goboleedyadii iyo maxaa la yiraahdaa iyo dawladda dhexe ay ka shaqeynayaan ama wasaaradda maaliyadda ay hormuud ka tahay ay ka shaqeynayso sidii reform loo sameyn lahaa sidii canshuurtaas maxaa la yiraahdaa loo midayn lahaa canshuurta dalka hadhowdii bay noqonaysaa in itemyadan la sheegayo oo maxaa la yiraahdaa hadda laakiin systemka la marayo waa systemkii hore maxaa la yiraahdaa laakiin waxay wadaan saan ku sheegay reform oo ay wax lagu bedelay arrimahaas markaynu eegno dhinaca kale meelaha ilaha dhaqaalaha ee ugu weyn magaalada muqdisho oo ay dekedda iyo airport ka mid yihiin labadaba waxaa jooga laba hay-adood oo ajaanib ah bal waxaad ka warantaa ma sidanaa dani ku jirtaa oo markii hore ay Soomaalidu joogtay labada iyo maanta markaad isbarbar dhigtaan ma sidanaa dani ku jirtaa mise waxa loo baahan yahay in laga guuro bismillah runtii saa sheegtay way labada hay'adood jooga horta dawladda Turkiga waa walaalahanahay oo wadanka wax badan u qabtay ayaa jooga iyagana iskama imaanay sharci bay ku yimaadeen oo sharci bay meesha ku joogaan saa adduunka la socotay dadka Soomaaliya adduunka ka mid nahay shuruuci sharci baa la qadariyaa marka runtii wax dhibaato lagu qabo oo la sheegayna maan arag laakiin hadda maxaa la yiraahdaa maamulkii iyo wixii hawshiisa ay u wataan maxaa la yiraahdaa wax ganacsatadu ay dhib ay ka sheeganayeen oo jireen ma jirin hadda shuruucdii loogu talagalay waa ku socdaan oo lagu heshiiyay ay ku socdaan marka dhib uma aragno leena anagu waxaan rabnaa wadanka in investment badan oo dad badan ay yimaadaan oo ganacsato badan ay yimaadaan investment ay ku sameeyaan marka waxay hormuud u yihiin dadka raba ama dawladaha kale raba inay wadanka invest garaan ay hormuud u yihiin am koow hadaan la dhihin waa laba la dhigi karaa marka waa u baahannahay in la yimaado laakiin hadda waxay raacayaan regulationkeena iyo ay raacayaan marba haddii regulationkii uu aysan waxba u dhibaynin nolosha dadkana aysan waxba u dhibaynin dadku ay shaqo ka helayaan dee waxa dawladdu ay rabtaaba intaas macnaha in la improve dadka noloshoodii haddii ay jiraan markaa cid ganacsato ah oo ka soo cabata cabashooyinkooda xagee geeyaan cabashada sida la socotay waxaa jiro wasaaradda waxaa ka horeeyo rugta ganacsiga yaa ka horeysa
waxay leeyihiin council of ayaga laftarkoodii oo ku saabsan maxaa la yidhahdaa council ganacsatada la yidhahdo ay leeyihiin oo haddaba nala socdo. waxaana la socotay rugta ganacsiga iyo laftarka haddana la socotaa rugta ganacsiga. marka cabashadooda meesha ay usoo gudbiyaan kadib ayaa loo soo gudbiyaa wasaaradduna waxay ka qaadaysaa manaa wax alla wixii cabashooyin jira inay yarayso oo dhib aan ka dhicin. marka saas jaranjarada waa saas. marka xidhiidhka idinka iyo qolyaha turkigu waa sidee, maadaama idinkuna aa mas-uul ka tihiin ganacsatadii iyaguna ay u adeegayaan ganacsatadii? dowladda turkiga ganacsatada ka joogta ama shirkadaha ka jooga soomaaliya runtii aad ay u ammaanan yihiin, gaar ahaan manaa dowladda laftarkeedii oo turkiya saa la soctad. xiriirkeena aad u wanaagsan yahay, ganacsatada soomaaliga iyo maxaa la yidhahdaa iyo turkiga. runtii ganacsatada soomaaliyeed badanaa waxayba aadaama turkiga, fiisay ka doontaan, meelahaas ay ugu sii gudbaan, waxbay ka ganacsadaan, ganacsi bay keensadaan, ganacsi bay celiyaan, maxaa la yidhahdaa waxbay geeyaan, haba yaraato ama meelo kaleba ha marsiiyaan. aad u wanaagsan yahay manaa maxaa la yidhahdaa isku xirnaantoodii oo turkiga iyo ganacsatada soomaaliyeed, waa ganacsatada turkiga ganacsatada soomaaliyeed waxaynu ognahay in marka dhinaca ceelasha biyaha loo dhaqaaqana maamul kale la galo, marka xagga balcad loo dhaqaaqana iyana maamul kale la galo. bal wasaaradahaan saamaynta ay idinku leeyihiin maamulada kale oo iyaguna dee wasiiro ganacsi leh oo isdawayaal gobol oo ganacsi leh, bal waxaad ka sheegtaa marka waxaad wax nooga sheegtaa maamul ahaan arrimahaas sida laysu cunsiin karo. waad mahadsan tahay. arrin muhiim ah oo iska dhawaajisay in maxaa la yidhahdaa qaabkee u wada shaqaysaan idinka iyo maxaa la yidhahdaa wasaaradaha kale oo dowlad goboleedyada. saasaan u fahmay su-aasha. runtii wasaaraddu haddii sharci ay samaynayso inta badan waxay samaysaa consultation, waxay la samaysaa wasaaradaha oo dowlad goboleedyada ka jira ayay consultation, ama wasiirada ha noqdaan ama wasaaradooda ha noqoto. waxaa la keenaa meeshii ama meeshada loogu taga ama meeshii markaas shirka loo arko ayaa loo tagaa. marka ayaga dhana on board ah, waxaan wax oo dowladda federaalka keliya iyada ay dictate garaynayso oo waxay rabta iska samaynaysa ma aha. consensus ayay wasaaradaha dhan wadaan. annagu sharci kasta annaga aan samayno ama wasaaradda ha noqoto ama wasaaradaha kalena waa saas. waxay la xiriiraan wasaaradaha kale oo ka dhisan dowlad goboleedyada, liannahu wadanku waa federaal. haddana waxaa la rabaa in ummadda soomaaliya loo wada shaqeeyo waay, ma aha in dabada la is haysto oo sharciga gooni wasaaradda ganacsiga warshadaha oo federaalka keliya ay la fakanaysa ma aha. marka saa la socotid hadda dastuurka dibogeysa lagu samaynayo, dastuurka lagu samaynayo dowlad goboleedyada la tagaa, way tagaan wasaaraduhu consultation la sameeya, society-ga la sameeya, arrimaha bulshada la sameeya, maxaa la yidhahdaa lala sameeya consultation ama wadatashi yaa la sameeya. wixii iyagoo wada ogol ah unba maxaa la yidhahdaa wasaaradda federaalka markaas ay gudbinaysaa. oo haddii golaha wasiir loo baahan yahay, haddii baarlamaan loo baahan yahay, iyo haddii manaa labada gole ama golaha shacabka ha noqdo ama aqalka sare ha noqdo, saabay ku soconaysaa. kadibna uu dekreeta madaxweynaha kusoo saaray. marka walaal waa saas nidaamku. ma aha maxaa la yidhahdaa Soomaaliya for example dadku waxay fiiriyaan in dowladdii halkaan haysta halka maamulka la galay, maamulkaas muxuu samayn, maxaa la yidhahdaa waxaas waa mar hore la soo maray, waa laga soo gudbay. hadda waxaa socota wada ogol in wax kaas lagu dhiso. ma jiraan xubno heer federaala oo ka tirsan wasaaradda ganacsiga oo si joogtaa uga howlgala dowlad goboleedadu? dowlad goboleedyadu waxay leeyihiin wasaaradahay leeyihiin saa sheegtayba. federaalkana wasaaraddii guud federaalka waay. marka wasiiradiiba toos maxaa la yidhahdaa ay u wada hadlaan. wasaarada toos ay u wada hadlayso wax ka dhexayso. kow mid labaad waxaa jirto haddii loo baahdo, haddii tababar iyo wax u baahan yihiin oo shaqaalaha wasaaradaha dowlad goboleedyada laftarkooda waxay siiyaan tababar oo ku saabsan shaqadoodii. markii hore waad ogtahay isku duwaa la magacaabi jiray dowladihii hore. maxaa la isku duwaa hebel wasaaradda la leeyahay, isku duwaakaas la leeyahay. laakiin hadda maxaa la yidhahdaa isku duwaashii waa jiraan laftarkooda dad oo maxaa la yidhahdaa oo u dhexeeya wasaaradda iyo kasoo warbixinaya wasaaradaha laftarkooda dhibka ay haystaan waa jiraan, laakiin ma badna. yani hadda waa wixii dhan electronic ay noqdeenoo wax oo hadda saas dhib u badan oo la marayo sidii hore ma jirto. kow saa la socotid shuruucda laftarkeedii anaga hadda system baan ka guuraynaa oo systemka federalism loo guuraya. marka systemkaas laga guurayay, systemkan hadda rabta inaad u guurtid waa inaad waafajisaa kii federaalka inaad waafajisid oo hadda loo guuraya. marka waa uun maxaa la yidhahdaa waa hawl isku wada xiran. runtii maxaa la yidhahdaa meel fiicanna way noo maraysaa haddii la yidhahdo.
bal waxaad warbixin naga siisaa iyaduna ganacsiga gaar ahaan gobolka banaadir oo wasaarad ahaan aad degantihiin ganacsigiisu siduu u shaqeeyo hadday jiraan caqabado ganacsatada ka hor yimaada. ganacsiga ama ganacsatada gobolka banaadir horta waa ammaanan yihiin, waa ganacsatada ugu badan hadda uu bixisa canshuurta, marka waana ku mahadsan yihiin runtii sida ay dowladnimada iyo ay garab ugu siinayaan inay Soomaaliya dowlad ay noqoto. intaas marka laga gudbo, ganacsigu waa kala duwan yahay Soomaaliya, muqdisho gaar ahaan waa kala duwan yahay. qaar baa hodheela ka ganacsada, qaar baa ganacsata bajaajley ah, baashaan bajaaj ley la yiraahdo oo aad ugu badan baa jirta. qaar baa bagaashka iyo wax keena, maxaa la yiraahdaa aduu different oo waxa lagu ganacsadaa ganacsiga qaybiis kala duwan ay ku ganacsadaan. marka marmar inay macnaha meel xiran iyo waxaas ay yiraahdaan oo meesha naga xiran waxaas ay yiraahdaan, dowladuna ay u soo jeedo inay wax ka qabato waa iska jirtaa, laakiin dhib hadda oo ayagu ay sheeganayaan ma jirto. labadii sana hadda ugu dambeysay bal waxaaba iska dhaaftaa eegaaba ku toosinaya oo wasaaradihii talooyin siinaya oo ama wasaaradda ganacsiga ay xiriir kala leeyihiin, talooyin badanna waa siiyaan oo qaabkay wax u rabaanna waa u sheegaan. maxaa la yidhahdaa waana aaminsan yihiin hadda dowladnimada ayay aaminsan yihiin. waagii hore ma jirin ganacsato loo yeero oo iska imaanaya ma jirin, laakiin qofka dowladda hadda waxaa waaye waxaad meesha ka garanaysaa in ganacsatada ama ummadda Soomaaliyeed ay ogolaatay dowladnimada inay ogolaatay yaad meesha ka garanaysaa. leanna haddii loo yeero wuu imanaya, wixii loogu yeereed baad gelinaysaa, kadibna wuu kaa tegaya. laakiin wixii hore markaas ma jiri jirin, marka meel fiican ayay noo marayso. dadkuna waxay fahmeen in nabadgelyadu hataa ganacsigu uu qayb ka yahay. yani nabadgelyadan haddaan ganacsi jirin, maxaa la yidhahdaa qofka hataa ganacsigiisa hadduu wareer galo wuxuu isku dayaa inuu balaayo kala abuuro, yuu isku dayaya. marka intuu manaha balaayo kala abuuri lahay ganacsiga marka u toosan dad badan uu shaqaalayna. course manaha waddanka waa ogtahay 80% waxaa lagu qiyaasaa dhalinyaro laftirkooda shaqooyinka waa sameeyeen. inkastoo hadda dhalinyarada ugu badan ay u shaqeyso dowladda ay shaqaalaysiisay oo xoog saartay sanadkii ka horeeyay xoog la saaray dowladda hadda khayr la siiyo. maxaa la yiraahdaa hawl badan ay ka wado. marka laakiin hadda daraad isbuuc ka hor waxaa dhacday shir aan isugu yeernay ganacsatada dhan iyo dowladdu ay albaabada soo xirteen wada hadlayaan waxyaalaha iyaga ay sheeganayaan dhib ka jiro iyo waxyaalaha dowladdu ay rabto. laakiin waxaa la isla gartay gunaanadkii waxaa la isla gartay in dowladda iyo ganacsatadu si dhow ay wada shaqeeyaan, ganacsataduna aysan codkoodii aysan kala xasdin dowladdu, wixii dhaliilay jira ay u sheegaan si dhaliilaha loo xalliyo. marka waxaad ka fahmaysaa in BPD ay dhahaan waa public private dialogue waxa la yiraahdaan qabanay. haddana manaha sanad dambe insha Allah yaa la rabaa in la qabto oo dad badan oo ku soo qayb galay. waxaa kaloo ganacsatada ay hadda manaha aad uga ammaanaan wasaaraddu in ganacsato Talyaani oo 12 company oo Talyaani ah yimid meesha waddanka oo aan la fariisanay business to business waxaan yiraahdaan ayaga isla fariistay oo information ay kala wadaarsanayaan hadday wax kala iibsanayaan haddii kale ay jirto. hadda ganacsato waxaa imaanaysa haddii la yiraahdo Finlandes ah ayaguna oo ay imaan doonaan. waxaan ugu talagalnay in ganacsatada Soomaaliyeed ay tusno ayagoo sector ah sectorka beeraha hadduu beeraha uu shuqul ku leeyahay beerihii, sectorka hadduu ku leeyahay ganacsiga kala caadiga ah midba sectorkiisii, haddii xoolaha uu yahay xoolihii, haddii sectorkaas uu ka shaqeynayo maxaa la yidhahdaa ay tahay sectore kale ka duwan ma uu ka shaqeynayo sectoradii inay sector ahaan hataa inay u wada fadhiistaan. marka qorshahaas waa inoo socdaa. maxaa la yidhahdaa hawlo badan oo ganacsadu liyanahu runtii waana aadan u ammaanaynaa. hawlo badan waa wadnaa anaga ku wasaaradan garabay nagu siinayaan. hadda laftirkeedii shirka hadda anaga aan joogno ganacsadii kama maqno oo saa la socda baryahan waxaa socday Ismaaciil Umar Geele madaxweynaha Jabuuti wuxuu furayay carwo daraad waa ka qayb galnay. ganacsato Soomaaliyeed ay jooga oo maxaa la yiraahdaa carwada international fairka ay yiraahdaan oo maalinta carwada adduunka wax noocaas ay sameynayaan inay carwooyinka wixii ka soo baxay Soomaalidu arkaan. wasaaraddu dukumeenti u qortay chamberka ay la xiriirtaa iyadu ama rugta ganacsiga ay la xiriirtaa. rugta ganacsiga waxay soo direen dad inay ka faa'iideystaan ay soo arkaan yay u direen oo ay yimid hadda jooga. ayaguna wafdi aniga aan hogaaminayaan ayna soo raaceen oo rugta ganacsiga iyo rugta councilkii oo business council ay yiraahdaan ayagana waana soo raaceen. shirarkan baryahan socday bay nagula jireen. marka waxaad aragtaa in wasaaraddii ay wada socdaan maxaa la yidhahdaa iyo ganacsatadii Soomaaliyeed. caqabadaha ugu waaweyn ee ama wasaarad ahaan ama ganacsi ahaan ka hor yimaada maxaa ka mid ah? ganacsatada Soomaaliyeed caqabadaha ugu waaweyn aan isdhihi karo
waa horta caqabada ugu weyn waxaa weeyaan inay wax dhoofiyaan yani productiga ka soo baxay wadanka waxay rabaan inay dibadda u diraan saa la socoteen dibaddana waxaa la maraa standard yaa la maraa marka standardkii maadaama ay haysan waxay ku adkaanaysaa inay wax badan ay dhoofiyaan kow wadamo kale la isticmaalay noqonaysaa ama wadan kale la marsiyo qarash kale dhaqaale kale la galo taas horta waa caqabada koowaad waa haysato maxaa la yidhahdaa caqabada labaad haysata aan isleeyahay maxaa la yidhahdaa waxaa weeyaan ayaga laftarkoodii kuma baraarugsana systemka adduunka u shaqeeya hadda ganacsiga adduunka sida u shaqeeyo kuma baraarugsana waxaad arkaysaa maxaa la yidhahdaa in nin ganacsata oo sidii ganacsadii hore u shaqeynaya ganacsadii waxaa la rabaa system la maro la rabaa haddii transfer money wixii ay noqon lahayd wixii dhan mana noqoto waxaa laga yaabaa marka inuu ninkan ganacsada waxaa laga yaabaa inuu maxaa la yidhahdaa lacag uu iska wato waxaa laga yaabaa inuu jidka lagu qabsado oo lacag asoo wato waddan kale uu wado la yidhahdaba shaki waxaas uu ku abuurmo laftarkeedii waa laga yaaba waxyaala anaga aan rabno hadda la rabo in businesskan reform la tababaro laftarkooda ganacsadu tababar badan la siiyo la qabsadaan qaabka systemka uu caalamka u shaqeeyo ayaa ka mid ah inta hadda inay aan xasuusto aad iyo aad baad u mahadsan tahay intaasina waxaanu kusoo gebagabeynaynaa waraysigii gaarka ahaa ee aanu la lahayn wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga ee dowladda Soomaaliya daahir cabdi cabdilaahi oo Dr. Gool loo yaqaano aad iyo aad baad mahadsantay